السلام عليكم ورحمة الله. markale kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan ka hadli doonaa dadka caatada ah ama qofka skiiniga ah baryaridu u dhashay sidoo kiilo iskugu dari karaa. Qof ayaa su'aal soo gaarsiiyay dhahaya caata ayaa ay zaid ayaa u caateysanahay eniyo maxaa sameeyaa maxay ugu talinaysaa. Horta haddii aad caata tahay oo jirkaaga caatinimada u dhashay taas micnaheeda ma hayna mataqaana chance ku banaaneen ay kiilo isku dari kareen. Dad badan waxa arkay dhahaya caata ayaa u dhashay kiilo wax walba sameeyay kiilo ma igu darsamayaan. waxa u baahan tahay qof caata hadaa tahay ina mataqaana wax aad sameynayso la socotid, cuntada cunayso la socotid, jimicsiga sameynayso la socotid. Video badan ayaa ka sameeyay. Videogaana waxa sharaxaad dheeraad ayuu noqon doonaa insha Allah. waxa koowaad u baahan tahay waxay tahay ina cunada iska fiiriso maxaa cunaysaa, jirkaaga muxuu u baahan yahay. haddii aad calorie laga rabo in ka yar aad cunaysid waa qasab inaad kordhisaa. caata zaid hadaa tahay waxa kuula talin lahaa inaadan ka fikirin protein, fat, carbohydrate waxa cunaysid. waxa kaliya muhiim ah waa inaad kordhisaa calorie-gaaga guud. sababtoo ah haddii aad dhahayd protein kaliya kordhinaya oo carbohydrate-ka waxay hoos joogayaan, adiga waxa u baahan tahay waa jirkaaga inuu weynaado kiilo kugu darsantaa. waxaa kuula talin lahaa inaad waxaas idin cuntid, cuntada nooc walba ka hor imaada cuntid oo aadan fiirinin maxaa carbs ama maxaa fat. adiga ma tiid qofkaas waxaas ka fikiraya, qofka buuran oo iscaateynaya ama qofka mataqaana kiilo yar inuu isku daro rabo ayaa muhiim ah inuu waxaas dhan ka fikiro. qorshaha ugu weyn wuxuu noqon doonaa adiga inaa cunno nooc walba cuntid. wixii xaraam ma ahane cunno nooc walba markaa ku dhaca inaad suuqa tagtid ama McDonald's tagtid oo khansiir qashin oo dhan cuntid maaha. waxaa muhiim ah inaa cuntid cuntada nooc walba xalaal ah inaa cuntid. midda labaad inaad nasiinadaada badisid si aad u nasatid. videoga hore saa ku sheegayba nasiinada muhiim waaye, sababtoo ah haddii aadan nasanin waxaa noqonaysa inaa mataqaana jirkaaga cuntada aad gelis uusan ku degin. haddii aad mataqaana calorie cuntid baa banaanka soo gubeysid oo wareegaysid kubad zaid dheelaysid inaa mataqaana iska yaraysid aad nasiinadaada badisid. midda kale waxaa muhiim ah inaa yaraysid orodkan faraha badan aadan u baahnayn. haddii aad mataqaana too much dad badan waxa arkada kubadda dheela ama maxaa lahaa orda haddana ku dhahayo inaa mataqaana kiilo isku daraaraba. haddii hadafkaaga inaa kiilo kaliya isku darto jirkaaga ugu weynaada rabtid, waxaa muhiim ah calorie-gan badan aad gubaysid. sababtoo markaa orod badan samaysid calorie ayaa gubaysaa. kubadda markaa wiigi 5 mar 4 mar ciyaartid calorie badan ayaa gubaysaa. waxaa laga yaabaa cunada cunaysid inaa half banaanka kusoo gubaysid. midaasna inaa iska yaraysid. midda kale ugu dambeysa haddaa gym aadid, gymka inaa ku dadaashid waxyaalaha compound movement-iga. ayaan horeba sheegay compound movement waxaa waaye murqaha waaweyn ee jirka bini'aadanka inaad ku dadaashid, aad iska yaraysid mashiinadan faraha badan aadan u baahnayn. marka waxaad ku dadaalaysaa lugaha squat-ka, waxaad ku dadaalaysaa deadlift waa dhabarka qaybta dambe ilaa qaybta kale oo dhan, xabadka, garbaha. jirka qaybtiisa ugu muhiimsan inaad ku dadaashid inaad dhistid. intaas kaliya haddaa ku dadaashid 3 bil ilaa 6 bil gudahooda natiijo weyn ayaa arkaysaa. midda kalena inaadan kaniyi jabin maxaa la hadafkaaga. haddii aad bil aawdid wax arki waaysid micnaheeda maaha inaa aadan bish soo socoto wax arkaynin. waxaa isku daydaa inaa mataqaana waqti siisid si jirkaaga mataqaana ula qabsado waxa aad samaynaysid, aana mataqaana si normal ah jimicsigan aadan uga caajisin. haddii aad mataqaana cunadaada yartaa waxyaalo kale laisku caabiyaa jiro sida gainerka oo kale, sida maxaa lahaa proteinada oo kale oo cunitaanka ay kugu yartahay, shake inaad samaysatid waxyaalo badan aad isku shiidid aad qasatid si cabitaan aad uga dhigatid. marka waxaa filaya inaa mataqaana aad dulmaray videoyada hore aad sameeyay mar kale aan ku celinayo dadka ku cusub si ay u fahmaan. channelka haddaa ku cusubtahay wax la sameeya waa taqaana subscribe, like, asxaabta gaarsi. Peace out.